السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا waxa meesha ugu badan laga helo ay tahay Soomaaliya ayaa qiimo sare jooga waliba aad loogu baahan yahay caanaha geela. waxaan ka hadlayaa qiimaha caanaha geela ee caalamka oo wax aadan malaysan karin. Imise ayaad ku qiyaasaysaa liitarkii? Dad badan waxa ay maanta kadib raadin doonaan caano geel halka kuwa kalena malaha ay ka fikiri doonaan sidii ay ganacsi ay ugu sameyn lahaayeen caanaha geela. Marka hore kusoo dhawaada barnaamijka xogta Jimcaha ee gal ganacsi oo aan ku eegi doono caanaha geela qiimaha ama lacagta uu caalamka kale uu ka jooga iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin oo aynu ku eegno. anigu waxaan ahay Yuusuf Maxamed Axmed. hagaag saaxiibayaal, dunida oo inta badan ku galagdisan waxyaabo badan sida cuntada, cabitaanka ayaa xogta Jimcaha ee barteena gal ganacsi oo arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha aynu kaga faaloono. waxaynu ku eegeynaa inta badan caalamka oo loo baahi qabo caanaha geela iyadoo dhowr sano ee la soo dhaafay ay sii kordhiyeen tirada dadka caalamkan ee daneynaya caanaha geela. cilmi baaris hore loo sameeyay ayaa waxaa lagu shaaciyay in noocyada caanaha ugu isticmaalka badan dunida ay yihiin caanaha la qalajiyo ee budada laga dhigo, caano booraha, iyo waliba kuwa marka la liso kadib la warshadeeyo ee kartoonada lagu keediyo. inkasta oo caanaha lo'da ugu badan yihiin adeegsiga caalamka marka loo fiiriyo noocyada loo diyaariyay ayaa haddana waxaa la yaab noqonaysa marka Soomaaliya loo fiiriyo in liitarka caanaha geela uu dunida ka joogo $30. ha yaabin, ha shakin, aan marka hore ku xaqiijiyo waa $30 liitarkii. waadna baari kartaa. warbaahin ay ka mid tahay Business Insider ayaa horay loogu baahiyay. waxaa qiimahaasi sare loo sababeeyay in caanaha geela ay aad uga faa'iido badan yihiin kuwa lo'da. sidaa oo ay tahay dunida oo dhan caanaha lo'da ayaa ugu badan. kaliya 3 milyan oo tan ayaa caanaha geela sanadkii oo dhan laga helaa adduunka, halka lo'dana la helo 600 oo milyan oo mititoon. $30 waliba aan la wada heli karin ay gaaraan caanaha geela. waxaa kale loo sababeeyay faa'iidooyinka xagga caafimaadka ah sida inay jiri karaan cudurro lala xiriirinayo caanaha lo'da balse aan jirin cudurro lala xiriirinayo caanaha geela. waxaa lagu sheegaa sidoo kale in isku dheelitirka nafaqada caanaha geela ay ka sareyso caanaha kale, taasoo micnaheedu ay tahay in caanaha geela lagu noolaan karo in ka badan inta lagu noolaan karo caanaha kale. si gaar ahaaneed waxa ay ugu wanaagsan yihiin dadka dhiigga la'aanta qaba iyo haweenka uurka leh. dhaqaatiir badan waxa kale oo ay sheegaan in caanaha ugu fiican ee dadka sokorta qaba ay isticmaali karaan ay yihiin kuwa geela. sidoo kale caanaha geela waxa ay uga fiican yihiin caanaha lo'da koriimada carruurta iyo tayeenta jirka dadka waaweyn oo ay ku jiraan walxa adkeeya lafaha. haddaan kaftan iyo qosol yar kusoo gabagabeeyo barnaamijkeennan, Soomaalida gaar ahaan reer miyiga waxay yiraahdaan qofka aan lagu karin ligdinta waa caano geel dhan. kurtun inuu ku turunturoodo mooyaane aanay cidna ligdi karin. barnaamijkeena toddobaadkanna waa inaga intaa. toddobaadka xigeenteenu dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa ammaan Allah.